سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ضمان مدحض وسلامتين waxaan u malaynayaa shirka gebagabo maraya khudbooyin dhaadheer waqtigooda ugu dhamaaday marka hore waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland mudane Saciid iyo xukuumaddiisa iyo shacabka reer Puntland shirafta sida qiimaha badan ay u martigeliyeen shirkan iyo dadka ka soo qayb galayba mar labaad waxaan rabaa inaan u mahadceliyo macadka Heritage oo runtii aan ku ammaanayo shirkan garowe ku qabsoomay ajandooyinka lagu soo bandhigay inay ahaayeen kuwo wax ku ool ah oo Soomaaliyana macna uga fadhiya dooda laga galayna ay muhiim ahayd aan rajaynayno mustaqbalka inay wax weyn ku soo kordhin doonto dib u dhiska Soomaaliya waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ciidamada amniga iyo habmaamuuska dowlad goboleedka Puntland oo runtii muujiyay aqoon iyo karti iyo adkaysi aad u fara badan waa dareemi karnaa inta madaxda shirkan ka soo qayb gashay iyo protokoolada ay rabeen intaasi waxay ku adkaysteen inay manage gareeyaan ama qofba protokoolka munaasibkiisii ahaa ay siiyaan arrintaasi runtii aadan uga ammaanaya dowlad goboleedka Puntland iyo mas'uuliyiinta hogaaminaysay habmaamuuska iyo amnigaba qodobka kale oo aan rabo oo muhiim ah oo aan dheerayn laakiin saxaafadda oo ayadana si xoog badan uga qayb qaadanaysay shirka kan oo muhiimka ah oo shacabka Soomaaliyeed meel walba caalamka ay ka joogaan u gudbinaysay dhammaan marka la isku soo daro ciidamada amniga saxaafadda iyo habmaamuuska dadka hawshaasi qabanaya waxay ahaayeen dad dhalinyaro ah sida aad la socotaan shacabka Soomaaliyeed boqolkiiba 70 waa dad da'doodii ay ka yar tahay 30 sano haddii aan rabno waddankan inuu hormaro dhaqaale ahaan bulsho ahaan iyo amni ahaanba waa in dhalinyarada Soomaaliyeed ilgaara lagu fiiriyaa lana howlgeliyaa waxaad dareemi kartaan boqolkiiba 70 waa percentage aad u ballaaran oo looga faa'iideysan karo dhaqaalaha waddanka in lagu kobciyo looga faa'iideysan karo amniga in lagu ilaaliyo madaxda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa khudbooyinkiina idaad ku wajahdaan mar walba dhalinyarada Soomaaliyeed oo qayb weyn ka ah bulshada Soomaaliyeed in la hormariyo dadka amniga ka hadlaya waxaan kula dardaarmayaa haddii aad rabtaan amni in la sugo amniga wuxuu ku jira dhalinyarada Soomaaliyeed Soomaaliya maanta waxaa loo adeegsanayaa waa dhalinyarada baagamuuntay noqdeen shaqo la'aan ay noqdeen in argagixisada ay recruit garayso lacag yar intay siiyaan markaa kadibna waddankan uu noqdo mid dhalinyaradiisii loo adeegsaday waxay la tahay mas'uuliyaddaasi waxaa iska leh waxay ka bilaabanaysaa dadka mas'uuliyiinta iyo طبعا hay'adaha kale ama kuwa maxalli ah noqdaan ama kuwa caalami ah noqdaan oo sheeganaya inay Soomaaliya kala shaqeeyaan amniga waxaan leenahay nisbadaas oo boqolkiiba 70 ah nisbe yar ma aha oo inayna hal kala furaa dhaqaale loo helo dhalinyarada Soomaaliyeed sidii loo howlgelin lahaa waxaan ku soo gabagabeynayaa inaan u mahadceliyo dhammaan dadkii shirka ka soo qayb galay aqoon-yahanada iyo dadka waayo aragga ah oo runtii markaan dhageystay doodaha halkan ka socda si hoose loo galay oo si tafaasiila looga dooday
oo caalamkan laga dhageystay iyo ka soo qaybgalkoodii Soomaali ilaahay waxaan uga baryaynaa guul qodobka kale oo muhiimka ah doorashada labada xukuumadood xukuumadda federaalka iyo xukuumadaha dowlad goboleedyada shacabka Soomaaliyeed waxay idinka sugayaan doorasho shafaafiyad leh tan kale dib aan ugu noqono shacabka marna uma dul qaadan karaan maanta Soomaaliya dhaqaale ahaan meeshay joogto waa ogtiin dowladaha ugu faqrisanay ka mid tahay qofka shacabka ka mid ah maalmaha ka mid ah magaalada dhexdeeda dagaal haddii uu ka dhaco waxaa laga yaabaa maalintaas qoyskiisa inayna helin quraacdii iyo qadadii iyo cashadii marka hal maalin oo foodo dhacday waxaa laga yaabaa dhibka naga soo gaarayay inay ka badanayso sanad iyo wax la mid ah waxaan ugu baaqaynaa mujtamaca Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan mas'uuliyiinta Soomaaliya in la iska ilaaliyo arrimo noocaas ah inay dhacaan aad iyo aad u mahadsan